Guinea Bissau ma Soomaaliya ka magac weynaatay maanta adduunka dhinac kasta haddaad soo marto Guinea Bissau cid taqaana male Soomaaliya laakiin waa la wada yaqaanaa markaas sidee loo waayey Soomaali ka ciyaara adduunka xagga Guinea Bissau ay ka soo baxayso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واقع فوتبول شو idin leh soo dhawaada waan fiican wax rajaynaya idinkuna dhamaantiin inaad fiican tihiin maanta ambaaw maxaynu ka hadli doonaa insha Allah laba qodob oo ciyaartii maanta Spanish ku ciyaareen aynu ka sheegi doonaa insha Allah laba ciyaartoy ayaa labadooduba waxay dhigeen record cusub ciyaartoyga koowaad waa ciyaartoyga caalamiga ee la yaqaan 34 jirka Sergio Ramos oo noqday difaaciyahanka ugu goolasha badan leh internationalka amba jeclow Ramos waa ninka goolasha shop tahaya maanta goolkiisa 36aad buu dhaliyay tirigorayaashiisii uun maahe madaxyadiisii uun maahe frikigyadiisii uun maahe counter attack uu soo raacaya teamka maahe ninka wuxuu noqday strikerada caalamiga ah inta gool oo international ka dhalinba ciyaartoyga 8aad buu imka ku jiraaye nationalka Spain taariikhda ugu goolasha badan leh xagee laga arkaa Spanish kan wuxuu noqday difaaci ugu goolasha badnaa dalka Spanish ninka waa soo socdaa intaas oo dhan difaac buu ka ciyaaraya ya bam iska red card badnaado positioningkiisu iska xumaado laakiin ninkii gool dhaliya ninkan striker baabu ahaa ma isleediniyo ya anu striker baaban ka dhigan lahaa bade halka taagno kubadda madaxana dhali tala soo cross dhali ninka nooc kasta buu dhaliyaa kubadda marka Ramos maanta record wuxuu dhigay inuu noqday difaaciyahanka ugu goolasha badan leh ee qaramada adduunka oo hal gool ku kormaray 22 markuu goolkii rigoraha dhaliyay tay buu ka dhigay kubadda loo soo korsaa madax yaro saasana leeyahay inuu kala kubad ninkii odayga waliba intuu sii weynaadayna oo penaltiyada qaatayna waxaad moodaa inuu soconayo ya imkaan ciyaarood buu laba gool maraya strikerada qaar baa laba gool ba dhalin intii kubad ciyaarayeen oo dhanbe ya daba ninkii Ramos halkaas uu maraya Fanda iyo nimanba waxbay la cararaane ninkani goolaliyo wuxuu isku darsaday adduunku wax la ciyaaro dhan oo aanu qaadin ma jiro still difaaciga koowaad muu noqdeen aniga Real Madrid gaar ahaan lahada ciyaartoyga kale jeclayna laba kelmadood ka yiraahdaa waa Ansu Fati oo ka soo jeeda wadanka Spain mise waan yiraahdaa Guinea Bissau ciyaartoyga yaroo 17 jira maanta wuxuu noqday ciyaartoygii ugu yaraayay u dhaliya gool wadanka Spain hadda ku darso oo ciyaartoyga yari maaha ciyaartoy ku dhashay dalka Spain isagoo 6 jira la keenay Spain magaaladiisa Seville maanta isagoo 17 jirana wuxuu ciyaaray national teamkii 16 jir isagoo ana Barcelona u ciyaaro gool u dhaliyay naam levelka inta leeg wuxuu noqday ciyaartoygii ugu yaraa Barcelona gool u dhaliyo Messi uu ka sii hoos maray wadankiisa Spain ciyaartoygii ugu yaraa buu noqday haddaba reaction-kaygu waa laba mid oo isagu ku saabsan waa midda koowaad ee ciyaartoyga yari isagay ku saabsan reaction-kayga koowaad waxaan leeyahay waa ciyaartoy u gaajaysan amba ay ka muuqato inuu noqon doono superstar waayo ciyaartoyga markaad aragto qaab ciyaareedkiisa amba noocu u socdo waxaad ka garan kartaa levelkan uu age-kan maanta uu yahay oo ku jira levelka uu ciyaaraya halku geyn doonaa inuu ka duwan yahay levelka 17 years kale uu sameyn doono marka kale maanta 17 years baynu ku jirnaa laakiin next 2-3 years inuu Ballon d'Or ku tartami doono superstar noqon doono xaqiiqa shakiga ma jiro unless waqtigu ciila mooyaane iyo madownimadu laakiin ninkaasi superstar soo socda weeyaan qaabku kubadda uu rabo qaabku doonayo inuu u baaso qaabku doonayo inuu u dhaliyo naam waxa ka muuqda wixii xasuusiyay Samuel Eto'o ninkani marka Samuel Eto'o sidoo ahaa waqtigu ma diiday starna waa kii noqday adduunka oo dhan qabsaday xidigu maanu qaadanay waanu ku tartamay xidiga Yurub marka Samuel Eto'o qaabkiisa buu u soo socdaa waana ciyaartoy weyn Barcelona iyo nationalka Spanish ka ka noqon doona haddaba reaction-kayga labaad isaga ma ku xidhna waxay ku xidhan ciyaartoygani maadaama uu ka yimid wadan yar oo Guinea Bissau la dhaho waxay qaaday dhiigii Soomaalinimada imka adduunka oo dhan haddaad marto oo ka qaado food Soomaaliya iyo Guinea Bissau keebaa la yaqaana adduunka ku magac weyn oo ka badan waxaan hubaa in Guinea Bissau inta taqaana ay ka yar tahay inta Soomaaliya taqaana
oo dad badan ay Soomaaliya yaqaanaan dan Guinea Bissau marka ciyaartooygan yar ee isagoo oo 6 jira ka imid Guinea Bissau maantana 17 jira ee 11 sano oo kaliya Spain ku noolaa ee laga helay inuu Barcelona isagoo 16 jira u ciyaaro 17 jirna nationalka Spain u ciyaaray maxaa inagana laynooga heli waayay ciyaartooy badan oo 30 jir imka ku gaaray oo ku dhashay qurbaha inagu jireen ciyaartooy Barcelona Real Madrid Chelsea Manchester United Liverpool ka ciyaaro oo intuu isagoo 17 jir bas ka day isagoo 20 jir gool u dhaliya qaranka Ingiriiska qaranka Mareykanka qaranka Jarmalka lagu daro qaran maxaa loo waayay Belgium bay ku noolin qaranka maxaa loo laayay ciyaartooy Soomaaliya marka heerka gaadha maxaa in haysta waxyaabahan YouTube-kayga u sameeyay bay kamid ahayd Soomaalimadeenna maxaa dib u dhigaya inaynu sportska ku horumarno marka inanka yarba hadduu halkaa marayo heerkaas maanta taagan yahay oo lacagta bari lagu kala iibsan doono haddii la kala iibsado ay tahay 300 oo milyan iyo ka badan maxaa inankiina yaraa Soomaaliga ha dib u dhigaya su'aashaas waxay u taalaa daawadayaashiina daawanaya asxaabtayda igu xidhan iyo kuwa aan igu xidhnayne channelkayga maanta ku cusub ee arkayaba videogan waxaan jeclahay su'aasha inaad ka soo jawaabtaan haddii Ilaahay yiraahdo qodobkaygii maanta intaas ku koobnaa waxaan jecelahay inaad wixii reaction aad aragtaan inaan ku qaldanay amba ku saxsanay labadaba comment-ka aad ka soo bixisaan subscribe-ka hayloobina comment-ka iyo like-ka hayloobina channel-ka haddaad ku xidhan tahay hayloobin gambaleelka inaad taabato si aad u aragto videoyadeeda cusub channel-ka haddaad hadda ku cusub tahayna intaan kuu sheegay baa subscribe kugu horeeya taabo waaga football show idin leh si aragti dambe oo xiiso leh